Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa maanta ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanaa. Geerida Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa waxaa ka tacsiyeeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka mid yahay Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa tacsi u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo ku geeriyooday London waxaana looga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkiisa iyo ummadda Soomaaliyeedna uu samri iimaan alla ka siiyo. wasiiro xildhibaano siyaasiyiin iyo inta badan bulshada Soomaaliyeed ayaa ka tacsiyay geerida Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. waxaan tacsi halkan uga diraynaa qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay Ra'iisul Wasaaraha hore qiimaha leh nin wadanka Soomaaliya waqti dheer u soo shaqeynayay shaqooyin kala duwan oo badan oo waxtar leh dalka u soo qabtay waxaanu leenahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo kulligeena qoyska uu ka baxay Nuur Cadde ay ku jiraan sabri iimaan Allahna ka siiyo aad iyo aad baa mahadsantii. Allah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya waxa uu dhashay 16 Febraayo sanadkii 1937 waana Ra'iisul Wasaarihii 12aad ee taariikhda Soomaaliya soo maray. Nuur Cadde waxa uu shaqadiisii ugu horeysay u qabtay uu ka bilaabay qaybta kastamka oo uu sarkaal ah ka noqday sanadkii 1958 laba sano ka hor madaxbannaanida Soomaaliya waxaan uu ka mid noqday saraakiisha booliiska caalamiga Interpol. Allah u naxariistay Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde ayaa waxa uu ka baxay kulliyadda sharciga jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo iskuul lagu magacaabo Fiscal Law oo ku yaala magaalada Rome ee caasimadda Talyaaniga. Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde ayaa waxa uu soo noqday qareen markii ay dhacday dowladii kacaanka sanadkii 1991. Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde ayaa waxa uu sidoo kale soo ahaa xogayaha guud ee ururka bisha cas ee Soomaaliyeed 12 Febraayo sanadkii 2007 ay madaxweynihii dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa uu Ra'iisul Wasaare u magacaabay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde kadib markii uu casilay Ra'iisul Wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi 19 Oktoobar sanadkaasi. marxuun Nuur Cadde markii uu codka kalsoonida ka helay baarlamaanka ku meel gaarka waxa uu ku dhawaaqay xukuumad ka kooban 73 xubnood 31 wasiir 12 wasiir dawle iyo 31 wasiir ku xigeen. Allah u naxariistay Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde waxa uu dhaxaad u noqday wadahadalkii dhex maray dowladii ku meel gaarka ahayd iyo garabkii maxaakiinta uu hogaaminayay Shariif Sheekh Axmed waxaana ugu dambeyn la dhisay baarlamaan ka kooban 3 dhinac oo kala ahaa dowladii ku meel gaarka ahayd maxkamadaha iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada. Allah u naxariistay Ra'iisul Wasaare Nuur Cadde waxa uu xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu qabtay sanadkii 2007 waxaana uu baneeyay sanadkii 2009 kadib markii uu Djibouti lagu doortay madaxweynihii dowladda ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed oo isna Ra'iisul Wasaare muddo kadib u magacaabay Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke. Maxamed Cabdi Bariye dalka TV Muqdisho.